waa dufcaddii sideedaad oo tiradoodu dhan tahay 612 arday oo ka qalin jabiyay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Badar. munaasabadda qalin jabinta ardaydani waxaa ka soo qayb galay waalidiinta ardayda qalin jabinaysay, madax kale oo ka socday xukuumadda iyo marti sharaf tiro badan. ugu horeyn waxaa munaasabadani ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay jaamacadda Badar iyo ardayda kala duwan ee ay soo saarto gudoomiyaha jaamacadda Badar, ku-xigeenka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. 612 arday waxay ka kala jabinayaan qaybaha kala duwan ee jaamacadda Badar ay leedahay. waxay ka kala jabinayaan kuliyadda education, tarbiyada oo Carabi iyo English labada department oo baxda. waxay ka kala jabinayaan kuliyadda Islamic Economics and Banking. waxay ka kala jabinayaan qaybta accounting and finance. waxay ka kala jabinayaan business administration. waxay ka kala kuliyadda shariica. kuwaas waa degree. waxa kaloo kala jabinayaan post graduates baa kala jabinayaan qaybta project management iyo qaybta Islamic Banking and Finance iyo qaybta educational management. sidoo kale waxaa jira arday masters kala jabinaya oo iyagu u gaar tahay kuliyadda nidaamka garsoorka. runtii jaamacadda Badar marxalad kala duwan bay soo martay, laakiinse waxay u dhisan tahay ahdaafta Badar u dhisan tahay waa 3 qodob oo mid afraad lahayd. qodobka koowaad waxa weeye inay soo saarto arday cilmiga casriga ku qalabaysan. qodobka labaad waxa weeyaan ardaydaasi inay noqdaan arday akhlaaq islaamiya leh. qodobka saddexaad waxa weeyaan ardaydaasi inay noqdaan arday iyagu wax qabsan kara, bulshadana wax la qaban kara. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaa ardayda inay noqdaan kuwii horumara naftooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba anfaca. baliyo cilmiga ha barateen ilaahay ku aqoon. waxaan kaloo halkan hambalyeynaya macallimiintii wax soo bartay iyo waalidkii. geesta kalena waxaa ardayda halkaasi hambalyo iyo bogaadin kala wadaagay wasiiro, mas'uuliyiin ka socday axsaabta mucaaradka ah, madax iyo marti sharaf kale. hambalyo baan idin leeyahay ardayda. waxaa ii farxada inaan maanta farxaddiina qayb ka ahaado. aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa sidaas la mid ah macallimiintii ku tacabtay iyo waalidiintii iyo asxaabtii barbar taagnay ee kharash galaysay tacabka gelisay ayaan iyagana hambalyeynayaa. ilaa alaan xukuumaddeenu way ku guultaraysatay inay ardayda sanad walba 6,000 dheeraadka ah ee soo qalin jabisa qorshihii iyo nidaamkii ay shaqo abuur ugu samayn lahayd ee hirgeliso. waxaan hambalyeynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay maanta jaamacadda Badar heerarka kala duwan. maanta waxa weeyaan waxa halka yaalla waa hambalyo inaan idhaahno ardayda maanta qalin jabinaysa. anigoo aad iyo aad ugu faraxsan kuna hambalyeynaya juhdiga iyo dadaalka ay jaamacadda Badar ku jirto. marka ardayda badani waxay ka turjumaysaa inuu dalkeenu u socdo horumar. ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa, intii ka qayb qaadatay na waynu uga mahad celinaynaa. alf mabruuk. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idin barakeeyo aqoonta. waxaan si gaar ugu hambalyeynayaa ardayda qalin jabinaysa. waxaan u mahad celinayaa wallaahi waa mahadsantihiin macallimiinta ku soo dadaalay ardayda. waxaa dhankooda iyaguna qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay xafladani dareenkooda la wadaagay labadii arday ee ugu sarreeyay jaamacadda Badar sanadkani. aniga oo ah aabbo 10 carruur dhalay, jooga dalkiisii hooyo, inuu waxbarashadii heerka labaad aan dhamaystaa farxad way bay tahay. waxaan aad ugu mahadnaqayaa sidoo kale macallimiinta sharafta badnaa ee la soo siiyay xiisaska farxad badan. run ahaantii ilaahay baa mahad iskale. marka labaad waxaan aad ugu mahad celinaya waalidkay intaa ka suko macallimiinteedii sida fiican muddadii dheeraad wax noo soo bariyay anigana aad ugu mahad celinaynaa. maanta waxaan ka qalin jabinayaa jaamacadda Badar gaar ahaan qaybta educationka. ilaahay waa mahad subxaanahu wa tacaala. sidoo kale waxaa mahadlay waalidka halka ay soo gaarsiiyay. gabagabadiina qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ka qalin jabiyay ayaa dareenkooda la wadaagay Saab TV. Cali Fahad, wararka Saab, Hargeysa.